munaasabad ballaaran oo xilka kala wareegayeen barasaabkii hore gobolka Togdheer Maxamed Ibraahin Aadan Qabo ahna wasiirka cusub ee wasaaradda qorsheynta qaranka Soomaaliland iyo barasaabka cusub ee loo soo magacaabay gobolka Togdheer Maxamed Cali Salabaan Ramaax ayaa ka dhacday xarunta maamulka gobolka Togdheer waxaana ka soo qayb galay munaasabadaasi xil wareejinta gudoomiyaasha gobolada Buuhoodle Saaxil Awdal Oodweyne gudoomiyaasha degmooyinka hoos yimaada gobolka Togdheer Cuqaal Salaadiin aqoonyahan haween xildhibaano wasiiro iyo marti sharaf kale waxaana mas'uuliyiintii kala duwaneed ee ka hadashay goobtaasi xilalka ay kala wareegayeen labada mas'uul ay ku dheeraadeen wax qabadkii barasaabka gobolka Togdheer iyagoo sidoo kale la soo dhaweeyay barasaabkan cusub ee loo soo magacaabay gobolka wuxuu ahaa nin daacad ah oo dadka runta u sheega aan ka gabanin waxa la doonayaa Maxamuud Calina inuu sidaas oo kala noqdo waxa runtii dad fara badan oo halkan ka hadlay cuqaal oo mas'uuliyiin oo saxaafadda leh ayaa waxay qireen inuu barasaabkii hore gobolka Togdheer isla markaana ay wasiirka wasaaradda qorsheynta qaranka Maxamed Ibraahin Qabyatire oo runtii noqday barasaabkii ugu wanaagsanaa ama ugu qiimaha badnaa ee soo maray gobolka Togdheer waxaan qiraynaa haddaan nahay annaguna xildhibaanada ama golaha deegaanka inaanu si fiican u wada shaqaynay inaanu mar walba garabkayga taagnaa inaanu garabkiisa taagnaa inuu noo dhaga nugulaa inuu nala shaqeeyo inuu meel kasta oo ay gasho danta gobolka iyo danta degmada waxaanu ka markhaati kacaynaa inaanu ka markhaatinay inuu meel kasta joogo waxaanu qiraynaa inuu meel kasta oo danta gobolku ay joogto inuu galay waxaa xusub midan oo runtii halkan laga xusin mashaariicda uu gobolka ku soo kordhiyey ee aanay ilaahay garansiin barasaabadii ka horeeyey ee waxaa ugu horeeya 25 sano halkii ayaa Soomaaliland jirtay waxaan ku xusuusanaynaa halkii Soomaaliland lagaga dhawaaqay 17 May oo intaaba inagu aanan garan annagoo golaha deegaanka aanan garan shan barasaabadii ka horeeyay aanay garan inuu inoo dhagax dhigay oo madaxweynaha iyo madaxweynaha iyo wasiiradii ugu qiimaha badnaa uu geeyay imikana dhismihii inoo socdo runtii Burco aad baan ugu faraxsanahay maanta in la yiri Burco waa mid waanay ka muuqataa way ka muuqataa inay mid tahay gudoomiyihii barasaabada ayaa Burco loo soo bedelay saaxiibkay Qabyatire aad baad u amaanteen waxaan u malaynayaa Ramaaxna sida ka sarreysa annagu Ramaax ma nidaahnee wuxuu ahaa gudoomiyaha noogu wax qabad badan gudoomiyaha la hiigsado waxaan uga bareeyaa arrinka maqbuulada ah ee aan annaguna u nimi ee kala wareejinta labada mas'uul ee madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland u soo magacaabay xilalka oo horta ka iminka aan joognaa uu yahay gudoomiyihii gobolka Togdheer ee magaca u bixiseen iyo gudoomiye cusub oo waaya arag fog ah waxaan oranayaa creamka Soomaaliland waa Burco labeenta Soomaaliland waa Burco barasaabkii hore gobolka Togdheer Maxamed Ibraahin Aadan Qabo oo halkaasi ka hadlay ayaa ka sheekeeyay wax qabadkii uu ka hirgeliyay gobolka Togdheer tan iyo intii madaxweynaha Soomaaliland u soo magacaabay gobolka Togdheer wixii aad gashatay wanaagana aad ka helayso wixii xuraad gashatad ama aad ku daydana ka hor iman iska ka celinaya Ramaaxna waan kula dardaarmaya waxaan leeyahay bahada saxaafadda gobolka waa ku midaysan waa dhalinyaro aqoonyahan u badan wanaagsan ka yar waxaan uga abaalgudanaa message-kan u gudbinayo gobolka iyo dadka qurba joogaba iyaga gudbinay amaan bay iga mudan aad iyo aad waxaana ku bishaaraysataan Burco kamaan tagine waan u shaqo ilaahay uun baa inaga soo furan karaa waxa maanta aynu runtii ku jirno
inaynu ilaahay in badan tadawuc u samayno u soo jeedno barasaabka cusub ee gobolka Togdheer Maxamuud Cali Salbaan Ramax iyo halkaasi ka hadlaya sheegay in soo cadaalada u maamuli doono gobolka Togdheer isla markaasina uu hoggaansami doono waxaan la soo bixi doonaa kitaabkaygii wadaadnimada runtii ilaahay hadiya habeen baanu bari doonaa gabagabadii waxaa halkaasi shahaado sharaf lagu guddoonsiiyey barasaabka hore gobolka Togdheer Maxamed Ibraahin Aadan Qabo shahaadooyinkaas oo ay kala guddoonsiiyeen qaybaha kala duwan ee ku dhaqan gobolka Togdheer sidoo kalena isagana waxaa shahaado sharaf lagu maamusay barasaabka cusub ee gobolka Togdheer Maxamuud Cali Salbaan Ramax shahaado sharaftaasi oo ku maamustay shabakada caalamiga ee Burco Online Khaliil Barrawraan shabakada caalamiga ee Burco Online magaalada Burco.